وأنفاسه روضة من عبير. هي الطيب فاحا هي البلسم وأنفاسه روضة من عبير. هي الطيب فاحا هي البلسم يهيم الخلائق في بعضهم وفيك أهيم ولا أسأم. يهيم الخلائق في بعضهم وفيك أهيم ولا أسأم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشكره فإنه سبحانه يجزي من شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إلهي سبحانه وتعالى آياداسي وحكو أمانايي عباد الرحمن addoommadiisa iyo dadka asaga gaarka uga baqa. ilaahay wuxuu yiri addoommadeeda aniga waxay yiraahdaan والذين يقولون وقوة لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إله حاسسكنا يا عرورتنا وحاد نقسيسا إن دقوبس وجعلنا للمتقين إماما. دتك إلهي كبقاينا هجاميال نوغدك ودت أيجا يا عرورتودي يحاسسكوا بسكوت دعينا. إلهي سبحانه وتعالى أولاده وحكا إيجاي نمعو آدي وين أو قفك بني آدم كأهل السيو. إلهي قبلنا وبحيا ويلنا وبحيا وأركتين lacag badan waa lagu bixiyay, dhakhtar badan waa loo tagay, ajaanib iyo Soomaali isku jirto awlaad way keeni waayeen. maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haduu ma yadhaho meeshaas waxba ma ka iman karo. إلهي مركا وحو كدغاي أولاداسي فرحة غوريغا وهلكيسا قلوبتا إني كفرحدو وليبا إلهي سبحانه وتعالى قبلها أيو وحوسيي كرامة زائد كبدن مدى قبلها مدى ويلش لسيي. taas waxa cadayn u Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri yahabu liman yashaa'u inatha. Ilaahay wuxuu soo hormariyay gabdhaha. Ilaahay qofku rabo gabdha ayuu siiyaa, wa yahabu liman yashaa'u dhukur. qofku rabana wiilal ayuu siiyaa, wiilal gadaal baa laga dhigay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala shiyadu soo hormariyo fadli gaar ayuu leeyahay. annagana meeshii markii islaamta noo umusho oo fool noo qabato dhigtaa noo taagan waxaan jecelnahay wiil bay ku dhashay in la dhaho. wiil iyo gabarta Ilaahay bixiyo, laakiin qalbiga wuxuu iska jecel yahay wiil baa ku dhashay in lagu dhaho. gabara dhalatay markii la dhahno waa farxee, laakiin farxadda wiilka badan inta badan sida wada ognahay. laakiin gabdhaha fadliga ay leeyihiin maanta aan dhageysano. nabi sallallahu alayhi wasallam gabdhaha fadliga ay leeyihiin wuu cadeeyay. wuxuu yiri gabdhaha yaan la nicin, fa innahunna almu'nisatu alghaliyat. gabdhaha waa wehelka adduunka ugu qaalisan. wehelka adduunka ugu qaalisan. guriga hadii wiilal kaliya laga dhalo, gurigaasi inta badan dagaal iyo xiqdi iyo cadawtooyin ka dhamaato. wiilasha inta badan waa isriixaan, waa iscadawsadaan. laakiin markii meesha gabdha ay soo dhaxgalaan naxariis ayaa iimaanayso. culimadu waxay dhahaan xitaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam walaalihiisa hadii hal gabar ay ku jiri lahayd way raadin lahayd walaalkeed.
sidii nabi muuse calayhi salaam walaashiisa bay u raadisay nabi yuusuf calayhi salaam dhibkaas iyo rafaadkaas wax geliyey walaalihiisa leewaay oo weliba wiilasha ah wax taariikh lagu soo arkay waaye guri haddii wiilal kaliya laga dhalo dagaal iyo isriixid ma ka dhammaato aabbahana kan uu jecel yahay aabba kaas uu jecel yahay kan dhar u soo gaday marka culimadu waxay dhaheen haddii xitaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam walaalihiisa hal gabar ku jiri lahayd xitaa ceelka ay u dawtagi lahayd way raadin lahayd sidii kuwaan ay iska fariisteen kale ma u fariisan lahayn nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu u ballan qaaday qofkii gabdho dhalay oo wanaagoodii iyo waxbarashadoodii iyo kursiimadoodii si fiican ugu soo baxa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man kunna lahu 3 banaat saddex gabdho ninkii dhalay si fiican u tarbiyeeya u naxariista kafaaladana qaado wax walba u baahan yihiin ilaa ay ka qaangaaraan wajabat lahu aljanna ninkaas janna waajibtay jannadiisa waxa waaye muranku ma jirto saxaabadu meesha fadhiyeen waxay dhaheen rasuul allah saddexa sheegtay ee laba ninkii dhali ka waranba ma ku jira miya laba xitaa ninka ku jiro ninka dhali xitaa ku jira nabi sallallahu alayhi wasallam culimadu waxay dhaheen nabi sallallahu alayhi wasallam hadii la weydiin lahaa xitaa hal ka waran wuxuu dhihi lahaa hal taa ku jirta nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay hadana xadiis kale laba gabdhood ninka ilaahay inta siiyay qofkii ka badan koriyana waxa waaye waa ziyaadadaasi waa kasi fiican tahay laba gabdho qofkii koriya oo asaga dhalay macnaha oo kafaaladooda iyo waxbarashadooda meel fiican uga soo baxa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aniga iyo asaga jannada hal mar ayaan galeynaa anagoo wada socno saas ah nabi laba gacmood u taagay wuxuu yiri anagoo saas ah aan jannada wada galeynaa marka gabdhaha in ilgaar loo yeesho waa mishan balan qaadayaan anaga waxa waaye dharka uu qurxoonna waxaan u soo gadnaa wiilasha gabdhaha waxa laga yaabaa sanad le in aragsan iyo loo soo gado wiilka dhar fiican markii loo soo arko waa loo soo gadaa khamiiska qurxoon markii la arko waxa la leeyahay aniga khudbadan isku raacina wiilkayga u gadaa koofiyado yar dalka soo gadee inta badan gabdhaha xitaa waxbarashada iyo wiilasha isku waxbarasho ma noqdaan maxaa yeelay gabdhaha waxa wax loo baraa ayaga jika iyo aroos le u dambeenayo nagada guriga iska joogaane ee dhahan aabayaasha inta badan wiilka lagu dadaalaa jaamic laga dhigaa dibadda la geeyaa gabadh inta badan waxa la shahaadada oo deeq qaadatay xitaa mid ugu sareysa oo PhD deeq qaadatay xitaa hadii babis ay wayso way soo baxsanay dabka ku babinay saasan inay dhaadhacsan waxbarashada gabdhaha in waxba aan waxtar isan lahayn laakiin nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay gabdhaha ninka si fiican u bara tababara diintooda bara dhibka jira wuxuu yahay waxa hadda magaalada fitnada ugu badan iyo dambiga ugu badan dadka geesta hadda gabdho waay hadda waqti xaadirkan fitnada dhalinyarada wax ku badiyay gabdho waay sababtoo ah gabadhaas waalid ka dambeeya tarbiyada ma soo wanaajinin maxaa yeelay gabadha ayadoo qaaban inta guri ka soo baxday dharka ugu dhagan soo qaadatay aroos soo aaday gurigaas waalidaa joogmaho waxa lagu leeyahay ma sheekho guriga ka soo baxayso xijaab ay wadataa markii la bisanayso hooyada way u jeedaa aabaha wuu u jeedaa xijaabka kaligiisa le ma la arkaa dharka hoose ma la arkaa waa la duuba aroosada niman aduuba ajaanib ah aroosada qaar waxa lagu leeyahay rag mamnuuc ka yahay soo gali karaan kaamiramanada iyo kuwa heesaha bedelaan rag waay oo meesha fadhiyo rag waa mamnuuc leeyahay kuwan rag ma aha marka gabdhaha markii tarbiyada loo wanaajiyo wax badan ay qabanayaan waa arki doonaa nabi sallallahu alayhi wasallam gabdhaha aad iyo aad buu soo dhaweyn jiray Umar ibn Khattab ayaa wuxuu dhalay gabar magaceeda Caasiya la dhihi jiray nabi sallallahu alayhi wasallam magacaas waa ka bedelay wuxuu yiri Jamiila loo bixiyo Caasiya macnaheedu qof caasiyad ah waay nabi sallallahu alayhi wasallam magaceeda xun waa bedeli jiray markaas wuxuu yiri maya qoftaan Caasiya ma aha Jamiila la yiraahdo qurxley magaciisu qurxina sadan fiiri nabi sallallahu alayhi wasallam gabdhaha hatta asaga uusan dhalin oo saxaabada kala dhaleen wuu dheelsiin jiray wuu ciyaarsiin jiray way sugi jireen waqtigii lahaan jiray u gaar ah wuu soo bixi jiray wuu imaan jiray waa ciyaarsiin jiray marmarka qaar masjidkay soo gali jireen wuu ciyaarsiin jiray saxaabada ay u jeedaan wuxuu ugu talagalay in 10 ay ka qaataan nabi sallallahu alayhi wasallam Salama gabadheeda Zaynab la dhihi jiray ayuu ciyaarsiin jiray markaas wuxuu dhihi jiray yaa Zuwaynib Zaynab yarey magac
difaaca uu qurxin jiray gabadha awoowaha uu yahay Umaama oo ay dhashay gabadhiisa Zaynab ayuu ciyaarsiin jiray asagoo tukanaya Nabi sallallahu alayhi wasallam uu soo xambaari jiray garabku saari jiray markii salaada rukuuco wala rukuuci jiray markuu sujuuda dhulku fariisina markii sujuuda uu dhameystirana soo qaadan jiray asagoo tukanaya waa adigoo tukanayna hadii guriga oo gabadha kugu soo cararto waxa halis ay gacan ka jabtay xitaa marka saa kala tuuraysid wararka laga soo bedelo qoftaan wasaqdeeda aan soo cararaysa maxay tahay leedahay nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhan yar kaadi iyo saxaro ma ka marnaan karta baqasab waa lahaane laakiin aslan waxa xasdan u fiirninba uu iska xambaari jiray ilmaha way ciyaarsiin jiray saas awgeeda ilmaha yar yarna way yaqaanaan cid u naxariista iyo cid aan u naxariisanin way ogyihiin hadii adiga aabahooda aad tahay adag tahay ma ku iimaanayaan ilmaha qalbigooda aad u waasac yahay hadii adeerkooda walaalkaaga uu ka fiican yahay dhanka ilmo ciyaarsiinta marka ay soo gashiin adeerka loo cararaa si fiican loo fiiriyo ado aabaheed ah ma ku iimaanays ama ku iimaanay wiilka maxaa dhacay adeega ka batay adiga bis adiga waxa la umaleysaa in guri raashin la soo dhigo dhala loo soo dhigo ilmaha laas inay waxay u baahan yihiin ma u baahan ilmaha intaas ilmaha u baahan yihiin xanaan waxa la rabaa guriga mar intaadan imaanin 9 jeer inay ku soo wacaan ilmaha ma soo socotido aad soo dhaqso imaw lagu soo xiisaal rabaa laakiin lagu xiisi waay oo guri marka soo gasho ilmaha dhan ay ka wada cabsadaan hadda korna waa sheegnay xadiiskaasi nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka inta guriga soo gala oo ilmaha iyo xaaska idinka dhanka cabsadaan shib la yiraahdo waxa soo galay aabaha hal aamusa yiraahdo ninkaas ahlu naar waa jani asay mis arkayaan maxaa dhacay adiga waa laga cabsadayba cabsidii ilaahay lagu siibaaday guriga dhan shib cilmihiisa u ciyaarayeen qof walba meeshiisa dhagax ku noqonaa ma dhaqaaqay dib waa in laga cabsado noocaas in laga cabsado wareer waa nabi sallallahu alayhi wasallam markuu rukuucayna waa dhigi jiray markuu soo kacayna waa gabadhiisa uu soo qaadanayay gabadhiisa Faatima nabi sallallahu alayhi wasallam aad iyo aad ayuu u sharfi jiray markay soo gasho meel asaga uu joogo fadhigu ugu kici jiray uu soo dhaweynay uu dhunkan jiray go'a asaga u saaran iska dajiyo oo dhulka u dhigi jiray uu fariisinay markaas wuxuu dhahay gabadheeda waaye dadku dareensiinay marada asaga u saaran inta u dhigo uu fariisin jiray gabadhiisa waa qofta ugu socodka ekeed nabi sallallahu alayhi wasallam markay soo socoto waxa loo maleyn jiray nabi sallallahu alayhi wasallam soo socdo aabaheeda aad u ekeed radiyallahu anha Aisha waxay tiri maalin baa waxa timid Faatima ayadoo sidii socodka nabi sallallahu alayhi wasallam u soconayso oo kale markay soo gashay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri marhaban bibnati gabadheedii ii soo dhawow agtiisu fariisiyay dhigtuu wax ugu sheegay way ooysay haddana mar labaad wax u sheegay way qososhay Aisha u timid Faatima nabiga wuxuu ku sheegay marna ooysay marna qososhay markaas waxay tiri aniga aabahayga sirtiisa barnaanka ma bixinaayo nabi sallallahu alayhi wasallam inta badan gabdhiisu sirta ku sireysan jiray marka uu dhintay nabi sallallahu alayhi wasallam Faatima waxay tiri aabahaaga waa dhintay hadee maalintii aan kugu heystaa wuxuu ku sheegay ii sheeg markaas waxay tiri Faatima aabahayga markuu dhigto waxay u sheegay aan ooyay wuxuu i dhahay xanuunka hadda aan xanuunsanahay marka kici doono waa ku dhimanayaa waa midii aan ku dhiman lahaa markii labaad dhigto waxay ugu sheegeen wuxuu yiri qofka ugu horeeyo oo aniga markaan dhintay iga daba imaan doono adiga waa nabi sallallahu alayhi wasallam Faatima waxa ka dambeysay 6 bilood bis nabi markuu dhintay qofka ugu horeeyo cidiisa ka dhinta waxay ahayd Faatima gabadhiisa 6 bilood ka dambeysay ayadana waa geeriyootay radiyallahu anha markaas wuxuu dhijina sallallahu alayhi wasallam Faatimatun bid'atun minni Faatima waa gabal aniga mid ah qofkii ayada ka careysiyana anigu iga careysiyay ogaada حتى gabadhiisa la yiraahdo Ruqayya markay xanuunsatay dagaalka Badarna loo socday Uthman qabi radiyallahu anha ibn Affan wuxuu ku yiri nabi sallallahu alayhi wasallam Uthman oo xaaskaaga xanuunsan xaaskaaga la joog ajarka jihaadka waa leedahay markii la soo ganiimeystay oo la soo laabtayna ganiimada khayb baa laga siiyay Uthman maxaa yeelay jihaadka inuu aad ugu rabay laakiin xaaskiisa ka xanuunsatay nabigaan dhahay baxaaskaaga la joog ajirka anaga aan soo helayna waa leedahay ganiimadana wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wax buu ka siiyay
nabi sallallahu alayhi wasallam xitaa guurkooda waa kala tashan jiray ninkii yimaado leeyahay iskaga dari jirin gabadheeda waay ana amarkeeda leh ninkaana uu anfacay lacag uu leeyahay gabadha ma weydiinay nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam gabdhihiisa waa la tashan jiray hadee may dhahaan waa ka dhaafi jiray Ali ibn Abi Talib markii Fatima uu soo doontay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay Ali oo aniga xaqii horta diyaar ay ka tahay laakiin Fatima inaan soo weydiiyay khasab waay oo ogow wuu yimid wuxuu yiri Fatima Ali ku soo doontay diyaar ma u tahay marabta ma kugu daraa wuxuu tiri ha raali aan ka waa qasash waa ku daray nabi sallallahu alayhi wasallam hadii diidleed ma ka dhaafi lahaa wuu karaameyn jiray meherkoodana arooskoodana waa fududeyn jiray qalbigooda farxad uu gelin jiray markii la guursado kadib guryaha ayuu ugu tagi jiray wuu booqan jiray wax buu ka soo cuni jiray aad marna wuxuu u ahaa la taliye wanaagsan ayuu u ahaa Ahmad ibn Hanbal ayaa waxa laga wariyaa imaamka radiyallahu anhu inuu yiri markii loo soo sheegay oo la yiraahdo hebel gabar baa loo dhalay wuxuu dhigi jiray u bishaareeya maxaa yeelay anbiyada gabdho ay dhaleen naftirkoodii sharafta gabdhaha ay leeyihiin wuxuu dhahay waxa kamid ah anna al-anbiya kanu abaa'u banat hatta nabiyada gabdhe dhaleen yiri nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dadka fara badan waxay dhaleen gabdho Muawiya ibn Abi Sufyan asagoo gabadhiisa la joogo Aisha ayaa qof soo galay markaas wuxuu yiri Muawiya qoftan yaa waaye ma dhihin gabadheeda waay wuxuu dhahay haadihi tufaahatul qulub oo yiri qoftan qalbiga mid qaboojinaysa waay oo dhahay gabadheedii waay ee aan jeclahay marka nabi sallallahu alayhi wasallam gabdhaha dardaarankaas uu ka bixiyay in wax la baro waxbarashadooda diiniga ah tarbiyadoodii in la wanaajiyo muhiim ah maxaa yeelay markii lagu dhahayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay wa bil walidayni ihsanan walidiinta wanaag loo sameeyo walidiinta in wanaag loo sameeyo waxa ka horeeyo ayagan tarbiyada anuga inay wanaajiyaan maxaa yeelay Umar ibn Khattab ayaa waxa u yimid nin iyo aabihiis ninkoo dhahayo nin wiilkeyga waay wuuna garaacay gacan uu qaaday Umar ala soo dacwooday markaas wuxuu yiri wiilkii ku dhac Umar aabaha maxaa gacan ugu qaaday markaas wuxuu yiri aabay gacan in loo qaado waa istaayila wiliba sagaal gacan in loo qaado waa u dhahay maxaa dhacay wuxuu yiri ugu horeen horta habar fiican igama dhalin markii la dhalayna magac fiican ma ii bixinin wuxuu ii bixiyay jucul waxa Allah xayawaankan yaro oo xaarka wareejiyo ma kana oo gidgidiyo oo hadii barfuun agsla keen dhimanaya wax arfay baa dhiba urle inuu ku dhex jiro rabaa magacaas uu ii bixiyo dhaay waaweenaade dugsi ima geenin ari ugu dari iyo lo iyo waxaan loo jooyo socod hadaan diidan oo garaaci jiriyo dhaay marka wuxuu yiri Umar ninkan iga la xuraan garaace ay celin markaas wuxuu yiri garaac ninkan waa ka gardaran yahay adiga wuxuu yiri anugan jucul ka bixinayso magac ma weysiyo dhaay jucul ka bixinayso waxaan magaalada magac yaal ma weysay markaas wuxuu yiri Umar radiyallahu anhu waalidiintu way soo dacwoonayaan waxay leeyihiin ilmahan ugu xun asalkoodan ayaga xumeeyay أول كور تربية إنك كوسو ليش عنوجا وعارك والدين تقار إمام في عننا يان عايك وعننا عاي ويريهن أباه ساسيال هذا ساسيال إليهن عنوجا ووينانا ودوا مركو وينادو وحوم لنا مركا وح إسكعادي مركي الحناقة أو الإسكتها هاي له أسينا وحناقة هايدو كدينا أبوك سيدينا مركز وحليهن واقنا عاسي واي هايدي سوعينا هرتيس على عاسي هاد على صاع عايسي مركو والدين تقار دي ilmaha ay kugu xun yihiin adiga dib isku laaw waxba soo haleesay dambiga laga jiro ma yara sallu wa sallimu ala khairil bashar wa atii'u rabbakum fima amar faqad qala subhanahu inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma an khulafa'ir rashidin abi bakr وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين اللهم رحمتك نرجو وإياك ندعو فأدم علينا فضلك واسبغ علينا نعمتك وتقبل صلواتنا وضاعف حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا يا رب العالمين وارحم اللهم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لكل من وقف لك وفقا يعود نفعه على عبادك ولكل من بنى
بنى لك مسجدا أو شارك أو عانى في بنائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة